dalada wacyigelinta iyo isku xidhka dhalinyarada Soomaaliland ee Sayna ayaa kulan lagaga hadlayay xidhiidhka dhalinyarada iyo culimada ku qabatay Hotel Golis ee magaalada Burco. Kulankan ayuu khudbad qiimo badan ka jeediyay Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame iyadoo si weyn loogu lafaguray waxyaabaha xoojinaya xidhiidhka dhalinyarada iyo waliba iyo culimada iyadoo su'aalo badan halkaas ay dhalinyarada munaasabada ka soo qayb gashay ku weydiiyeen sheekha isagoo sheekhuna dhamaantood uga jawaabay mid isla markaasna ballan qaaday inay culimaha wixii dhankooda ah wax walba u fudeydin doonaan isla markaasna ay xoojinayaan xidhiidhka dhalinyarada ay la leeyihiin culimadu isagoo dhalinyaradana u soo jeediyay inay dadaalka badiyaan in waxa weeye dhalinyaradu culimada waxa weeye ay ku xidhmaan bulshadana ay ku xidhaan sumcad wanaagsanna ay dadka u dhex dhigaan tan noocaas iyagana waxtar bay u tahay diintooda iyo aakhiradooda labadaba diintooda iyo adduunyadooda labadaba waxtar bay u tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku raali gelinaya tan labaad bulshada qaybaheeda kala duwanna in la isku xidho si horumar loo gaadho waxay ka qaadanaysaa qayb weyn bay ka qaadanaysaa gabagabadii gudoomiyaha dalada Sayna ayaa dhalinyarada u iclaamiyay inay sameynayaan barnaamijyo joogto ah oo toddobaad kasta dalada Sayna kaga hadli doonto arrimo dhalinyarada khuseeya marka waxay leedahay ku soo dhawaada dalada dhalinyarada isku wacyigelinta ee Sayna jimco kastana waxay inoo balana barnaamij noocan oo kala ah kaga hadli doono arrimaha wacyigelinta ee ku saabsan dhalinyarada Mustafa Ismaan Magaalo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco.